لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. maanta waxaanu ka rabnaa inaan ka hadalno mowduuc runtii aad iyo aad muhiim u ah, ilaahay agtiisana ka weyn, nabi maxamed calayhi salaatu wasalaamna lagu sharfay. walaalayaal, waxaa soo dhow ama dadka qaarkood ay xusaan waxa la yidhaahdo al-israa walmicraaj ama leylatu lisraa'i walmicraaj, habeenkii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam la dheelmiyey oo loo dheelmiyey samada loo dheelmiyey. walaalayaal, habeenkaas iyo arrintaas dhacdadaas waxay ahayd dhacdo aad iyo aad u weyn, runtiina tusinaysa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam runtiisa iyo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala soo diray. waa marka koowaadee nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam muusan oranin waan baxay oo aniga ayaa cirka aaday, laakiin wuxuu yidhi usriya bi, waa lii dheelmiyey, waa lii kaxeeyey. waxay ahayd mucjiso rabbaani ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala nabi maxamed la soo diray. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa la dheelmiyey, cirka ayaa la geeyey ilaa uu dhaafay 7 samo, halkaasna uu kula hadlay allah subxaanahu wa tacaala, laguna soo farad yeelay salaada. markii hore waxay ahayd 50, laakiin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam sidii uu u laalaabanayey 5 ayaa laga dhigay. 5taas oo la ajar ah 50 salaadood, 50 ajir xagga ajirka ah waa 5 salaadood, laakiin xagga ajirka waxay la mid tahay 50 salaadood ayay la mid tahay. allahu akbar, nimco aad iyo aad u weyn ayay ahayd. haddaba habeenkaas walaalayaal, dadka u dabaaldega waxay sheegaan inay ahayd 27 rajab. marka waxayna soo daliishadaan axaadiis daciif ah oo aan waxba ka jirin, ayagoo ku andacoonaya in habeenkiina la istaago, maalintaasna la soomo. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam walaalayaal, maalinkaas noomuusan sheegin, namuuna safarin. waxaadna ogaataa wax kasta oo aan diin ahayn oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uusan farin, maanta diin ma noqonayaan. ilaahay wuxuu leeyahay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii, maanta ayaan diintiina ina dhammaystiray. diinta nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam way dhammaystiran tahay. su-aal kalaa la isweydiiyeyo waxaa la yidhi, horta goormay dhacday? goormaa nabiga sala allahu caleyh wasalam la dheelmiyey? lamaba yaqaanba. xadiis saxiixa oo ku soo aroorayna ma jiro. inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddan hilmaamsiiyana xikmad ayaa ku jirta. xataa haddii la aqoon lahaa maalinkaas ama habeenkaas la aqoon lahaa, yacni dadna qofna uma banaanaateen inuu cibaado jeebkiisa kala yimaado, maadaama uu nabi maxamed sala allahu caleyh wasalam suubinin. nabiga sala allahu caleyh wasalam walaalayaal, bidcada uu ka digay. bidco kasta wuxuu yidhaahday nabiga sala allahu caleyh wasalam waa dalaalo kastana naarta ayay ku jirtaa. weli nabi maxamed sala allahu caleyh wasalam jimco kasta ayuu kusoo celin jiray, fa ina asdaqa alxadiidi kitaabu allah wa khayra alhadyi hadyi muxammadin, uu nabiga sala allahu alay wasalam dhihi jiray. wa kula bidcatin dalaalah, waa qaacido caama uu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaamna siiyey. wax kasta oo diintan lagu soo dariyo oo loogu dhowaanayo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo uusan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam jidaynin, qur-aankana uusan jidaynin, waa bidco weeye. ama xasana hala dhaho ama wax kale ha loogu yeero. saas darteed walaalayaal, waxaa fiican inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ku caabudno waxa uuna amray ayaa fiican. inaan laakiin annaga jeebkeena kala nimaano waxyaalo aan jirin, walaalayaal meelna ku gaari mayno. waxayna nagu kalifaysaa inaan nabi maxamed sala allahu alay wasalam tuhunno oo aan dhahno khayr buusan nooga qariyo, uusan noo sheegin. walaalayaal, ilaahay baan ku dhaaranayaa, qofkii keena xadiid saxiix ah ama saxaabadii ka sugnaaday ama salafu saalix ka sugnaaday inay u dabaaldegi jireen maxaa la yidhaahdaa al-israa walmicraaj, waxa weeye qofkaas baanu leenahay xaq ayaa ku taagan tahay. laakiin haddii la keeni waayo, taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay oo adiga aad la timaadid wuxuusan nabi maxamed sala allahu alay wasalam la imaanin, inaad nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam aad leedahay lisaanu xaalika, carabkaada uu leeyahay nabiga sala allahu caleyh wasalam khayr buusan noo sheegin. waxaanu ognahay oo aanu yaqiinsannahay in nabi maxamed sala allahu alay wasalam khayr kasta noo sheegay, shar kastana nooga digay. waxaan kaloo yaqiinsannahay
saxaabada radia allahu canhum inay nebiga sala allahu calayhi wasalam nooga soo guuriyeen oo nooga soo rareen wax kasta oo khayr noogu jiro. saas darteed walaalayaal waxaa khayr badan inaan sunnada ku sugnaano. waxaan ilaahay subxaanahu watacaala weydiisanayaa inuu jannadiisa na geeyo. waxaan inaga codsanayaa in aad iisoo ducaysaan aniga sidaan anigaba idinkiinugu ducaynayo oo aan u leeyahay ilaahay waalidkiin ha u dhaafo, ha u dembi dhaafo, ha u naxariisto. waxaan kaloo inaga codsanayaa inaad usoo ducaysaan saaxiibkay inuu ilaahay subxaanahu watacaala labadiisa waalid u dembi dhaafo, gaar ahaan hooyadiis. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu.